ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaaliga ee Soomaaliya oo horkacaya gudoomiyaha degmada Ceel Cali ee gobolka Hiiraan ayaa saaka waxay ka ambabaxeen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan si ay u gaaraan deegaanka Ceel Cali oo dhawaan la wareegeen ciidamada Ethiopia qaybta ka howlgalka AMISOM. wariyaha telefishinka idaacadda SBC ee gobolka Hiiraan Cusmaan Aadan Carays ayaa warkaasi magaalada Beledweyne inooga soo diray. ciidamadan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa arunimadii rasaakaytu waxay ka roqaansadeen deegaan dhaca dhanka koonfureed magaalada Beledweyne si ay u gaaraan deegaankaasi Ceel Cali ee dhawaan la wareegeen ciidamada dalka Ethiopia qayb ka howlgalka AMISOM. gudoomiyaha taliyaha horkacaya ciidamadaasi ayaa u waramay idaacadda telefishinka SBC ee xaruntiisa gobolka Hiiraan. waana soconayaa deegaano cusubna waa tagaynaa hadwa leeyahay gobolka Hiiraan inta bakool xuduudka leeyahay halkaasna joohar inta kaliya ma aha meel kasta oo ay ku duraan oo nimankaasi ay galaan waa tagaynaa wadooyinka waa la furayaa cid xiraysa male ciidamo ballaaran ah ku lagu soo daayay annaga had meel shiila tagana had maamul baa laga dhisi doonaa malayn maayo iyo meelihii hore loo qabsaday ka dhacay in ay ka dhacayaan ciidanka wuxuu waajibaadkiisu yahay inuu gaaro Ceel Cali si ay ugu wadaan ciidamada kale oo AMISOM marka annaga oo sakan ciidankaas ay ka tukaamaysan tukaamadooda ay raacdaan ayaan ugu baaqaynaa shacbiga. ciidamadan ayaa la filayaa inay gaaraan ciidamada kale ee dawladda federaalka Soomaaliya kuwa Ethiopia ku sugan deegaanka Ceel Cali si ay u gaaraan deegaano hor leh oo ka tirsan deegaankaasi Ceel Cali oo hoos tagta gobolka Hiiraan. Cusmaan Aadan Carays, idaacadda telefishinka SBC Beledweyne.